waxaa maanta magaalada Hargeysa si meeqaamkeedu sareeyo loogu soo dhaweeyay Abwaan Khalid Cabdi Yuusuf Abwaan Miino oo ka soo kicitimay dalka Jarmalka waxaana ka soo qayb galay soo dhaweyntani abwaaniin fanaaniin suxufiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay Yuusuf Nuux Yuusuf Tadhase gudoomiyaha xiriirka jaaliyadda Soomaaliland ee qaaradda Yurub oo in mudahaba ku sugnaa dalka Abwaan Miino muddo 2 cishaaba laga shaqeynayay sidii dalka lagu soo dhaweyn lahaa dadkana adeerka waxay soo baxeen saaka arooriyadii hore imikana sadarka waa duhur waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan fanaaniinta abwaaniinta ciyaartooyga xulka gobolka Hawd ciyaartooyga xulka gobolka Maroodijeex iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay soo dhaweynta abwaanka insha Allah abwaankuna wuu noqon doonaa wixii inta ka dambeeyana waynu iswareysan doonaa hadii Ilaahay geestooda iyaguna waxa halkaasi ka hadlay abwaaniin ay kamid ahaayeen Daahagaas iyo Siciid Gahayr fanaaniin iyo suxufiyiin ka soo qayb galay soo dhaweynta abwaankani laakiin waxa ii farxada maanta oo waliba u soo nagaadana maanta bixi lahaa inaan mar ayaydo wahay abwaanka aan taageero inta soo goor oonan tirin karin mar 2-3 Frankfurt Airport in badan ugu soo dhaweeyay maanta inaan kugu soo dhaweeyay in magaaladii Hargeysa oo waliba jawi aad u qurux badan duleedkii Hargeysa geeli aad dhaqanka u lahayd oo ka dambeeya intii aan kugu soo dhaweeyay aad baan ugu faraxsanahay sida la wada sheegay waxaan soo dhaweynaynaa maanta abwaan Khalid Miino ma aha abwaan kaliya waa waxa loo leeyahay qofka marka la sharaxayo oo ciyaalkii hore Hargeysa Jarmalkan shaqo weyn dalkan joogno uga hayaa waxaan maanta halkan u joognaa inaan soo dhaweyno abwaan Khalid Cabdi Yuusuf Miino oo ka soo laabtay dalka Jarmalka marka hore waxaan islahaa adigu baciido oo joogi doonta laakiin nibcadegalna waa joogtaa marka iyo hodan Muuse iyo waa dhannahay oo badanahay intii Khalid maqnaana qalbiga laga wada joogay niyada laga wada joogay maanta waxaan ku faraxsanahay in isagoo nabad qabo oo caafimaad qabo oo dalkii ku soo noqday intii aan oran lahaa wala soo yiri abwaan fanaaniin iga waaweyn tixgelin mudan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta abwaan Khalid Cabdi Yuusuf annagu oo aad u fara badan baabuurti geeli cid walba sida sheegtay nimcadegan waxaan leenahay maanta ma sha Allah waxaan ku ciideeda weeyaan waxaan leeyahay Khalid welcome aad baan ugu faraxsanahay ciideeni iyo dalkeeniba mar hadaa timid waan isu joognaa waan leeyahay inaan maanta halkan aan ku soo dhaweyno maxaa la abwaanka weyn ee abwaan Khalid Yuusuf Cabdi Miino oo in muddo ahba ku maqnaa wadanka dibadiisa abwaan Khalid Cabdi Miino walaalkeen badan bay naga maqnaa inaguna daltabiyo isagu daltabiyo qabay inaguna boholiyo uu qabnay labadeena waan soo baahnayna waxaad ka garataa sida isla loo soo dhaweeyay abwaan Khalid dalku waa kiisiyo uu ku dhow yahay wuxuu baanu sii dhadhansiinayna sii dareensiinayna farxadda iyo kalgacalka loogu hayo dhulkiisa maanta waa maalin weyn waa maalin qiimo leh waa maalin dhamaanteedba abwaan fanaan dhalinyaro waxaan ku ma soo koobi karo aan u soo baxnay soo dhaweynta walaalkayo abwaanka qaaliga Khalid Cabdi Yuusuf oo ku magac dheer Khalid Miino ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay abwaan Khalid Cabdi Yuusuf Abwaan Miino oo mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa ugu horeyn Ilaahay baa mahadle anoo nabad qaba barlabaad dalkaygu hooyo muddo ka maqnaa igu soo guriga noqoshiyay barlabaad waxaan u mahadnaqayaa bahda saxaafadda walaashiisa Mustafa Garabkeyga taagantay bahda fanaaniinto ay joogaan fanaaniinta macdagan Khadra Cabdi Salmo Abaan Daha Abaan Siciid Maxamed Gahayr Abaan Halbeeg Abaan Biso عوالدي يحاسين النجمة ودمات لله يهاي آد مهد سنتين بس كوب كرمات في الحديدة واحد كلامه مهنغيا بهذه سبورتسكا وكوحي هيرك وبعد عاصمة يجوا والذي يمرد شيء يجوا جوف تايجا مقدان ونيجنا لا يصاحب يا سيد قروح بدل ما أنت يسود ويسين عبد الجبار محمد حسين ورقة تلفزيون كاريال هرقيسة